halkan waa isgoyska Fagax waxa uu kala qaybiyaa degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshiid dhinaca degmada Kaaraan waxa laga sameeyay howlgal oo ay sameeyeen dhammaan ciidamada amniga qaybahooda kala gedisan waxaana sidoo kale la burburiyay sandaqadaha ama sidoo kale dukaamada yaryarka ay ku yaalay hareeraha laamiga taa oo ay ku tilmaameen inay tahay mid lagu iibinayay waxyaabaha maanka dooriya oo dhibaato ba'an ku haya bulshada ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho ciidamada ammaanka ayaa mid u baarayay xaafadaha Kaaraan iyo Yaaqshiid iyadoona dhinaca Kaaraan guryaha ku yaala laga soo bixiyo dhowr juwaano ay ku jireen xashiish qamri jaad iyo calaq isla markaana inta lagu guda jiray howlgalka waxay ciidamadu gacanta ku soo dhigeen dadka ku shaqada lahaa arintan waxa hogaaminayay howlgalka taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir gaashaan la sare Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole sidoo kale qayb waxa ka ahaa taliyaha qaybta Barigoof joogay oo sheegay arintan in muddo inay ka soo shaqeynayeen sidii loo ciribtiri lahaa waxyaabaha lidiga ku ah ammaanka dalka taliyaasha saldhigyada Kaaraan iyo Yaaqshiid iyo sidoo kale mas'uuliyiinta labada degmo ayaa ku sugnaa goobta taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed carabku waxay ku adkeeyeen inay laba jibaari doonaan howlgallada caynkan oo kala ah si loo yareeyo bay yiraahdeen dhaca mararka qaar ka jira degmooyinka gobolka Banaadir maamulka gobolka horkacay duqa magaalada ayaa kormeer ku yimid halka howlgalku ka socday intaasi kadib waxyaabihii la soo qabtay ayaa lagu gubay fagaaraha laamiga isgoyska Fagax Umar Maxamuud Maxamed Firish duqa caasimadda Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay xilli warbaahinta la hadlayay in ay yareen doonaan waxyaabahan maanka dooriya ee lagu dhalin rogay maskaxda dhalinyaro badan howlgalladaas waxa ay ku saabsanaayeen sandaqado aad u tiro badan ayaa laga soo buuxiyay wadooyinka waaweyn dhinacyadooda kuwaasoo lagu iibiyo daroogada faraha badan oo noocyada kala duwan ee gadaashayda taal runtii arintan in muddo ahba waxay ku haysay dhibaato bulshada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan bulshada ku nool gobolka Banaadir waxay saameyn weyn ku yeelatay da'yarta hadday ahaan lahaayeen kuwa xoogsatada ah iyo haddii ay ahaan lahaayeen kuwa ardayda ah ama ardayda jaamacadaha ama ardayda kale oo dugsiyada hoose dhexe sare dhigta runtii bulshada deegaankan cabashadooda ayaa si isdaba jooga noo soo gaaraysa in muddo ahba annagoo ka jawaabayna marka cabashada bulshada ayaan maalin dhaweyd shir ku qabanay khamiistii dhaweyd ee xarunta degmada Kaaraan aan ku sheegayno inaan la dagaalamayno waxyaabaha noocaana oo amni darrada keenaya runtii degmadan Kaaraan iyo degmooyinka mid ah gobolka Banaadirba in muddo waxay la daaladhacayeen amni darro dhammaan daroogadaas ayaa ahayd xanuunka ugu weyn oo bulshada gobolka Banaadir ay la daaladhacayeen gaar ahaan daayirta bulshada deegaanka culimaadudiinka iyo duqowda iyo mas'uuliyiinta kala gedisan ee bulshaduba cabashadooduna ay si isdaba jooga noo soo gaaraysa runtii waa sidii loo bilaabay howlgalkan uu socon doona insha Allah taala Faaduma Cabduqaadir raadi hay TV-ga dalsan Muqdisho